أيها الإخوة المؤمنون khudbooyinkii ugu dambeeyay ee aan masjidkan ku qaadanaynay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waxaan dooranay inaan uga hadalno tilmaamaha Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u sheegay dadka caqligoodu uu fayow yahay ama caqligoodu uu shaqaynayo ee quraanka lagu sheegay sidaan hore u tilmaanay ilaa 16 meelood oo quraanka ka mid ah ayuu Allah tabaaraka wa tacaala ku soo celceliyay inay bani aadamka ka mid yihiin dad caqligoodu uu shaqaynayo uu fayow yahay bani aadamku asal ahaan caqli buu leeyahay laakiin waa la kala qaaday oo qaybna waxa la tilmaamay in caqligoodu uu shaqaynayo uu fayow yahay way ka faa'iideysanayaan way wax ku iftiinsanayaan oo wixii hore u dhacay iyo waxa hadda ay joogaan iyo waxa dhici kara ee iman doona ee Allihii caqliga siiyay uu u sheegay isku xidhayaan qofka bani aadamka Ilaahay baa abuuray iskuma khilaafsan mar haddii Ilaahay uu abuurayna waxa uu ka kooban yahay oo dhan Ilaahay baa siiyay caqliga ka mid ah Allihii marka bani aadamka abuuray ee caqliga siiyay yaa rusul u soo diray oo uga warramay waxaana horay u jiray oo u dhacay dadka qaarna way ku halaagsameen dadka qaarna way ku badbaadeen hadda waxaana jooga wadadaasna way ku haboon tahay wadadaasna kuma haboona waxaas iyo waxaasna way ka horeeyaano iska jir waxaas ka horeeya iman doona qaybta noocaasa wax dani kuuguma jirto qaybta noocaasna danba kuugu jirtay ku dadaal ogowna baa leeyahay inta inkasto si kasto u noolaatid xaqi Ilaahay baad u laabanaysaa qayb sidaas loola hadlay way fahmeen way qaateen way ku dhaqmeen qaybna dhag jala qumaynsiin ee waxay yiraahdeen annaga isku filan bay yiraahdeen Ilaahay tabaaraka wa tacaala cidii isaga ka tala baxda oo isaga aan qorshaha ku darsanin oo isaga aan la tashanin isaguna waa ka deeqtoon awalba uma baahnayn adoomadiisu ka mid ahaa uu ka maarma Ilaahay tabaaraka wa tacaala isaguna faruhu ka qaadaya darajo kasto uu leeyahay iyo muuqaal kasto uu leeyahay iyo si kasto uu eg yahay iyo xoog kasto uu leeyahay adoonnimo ka bixi maayo qofka wax la abuuray ka bixi maayo inuu dhimanayana ka bixi maayo oo daa'irada wuxuu ku jiraa inuu dhiman doono ah oo muddo uu joogay suuradan marka waxay ka mid tahay suurati talaaq waxay ka mid tahay suuradaha lagu sheegay ulul albaab haddii Ilaahay naf nagu daayo oo noolaano tilmaamahaas 16 meel lagu sheegay mar baan isu keeni doonaa oo dib aan u akhrinaynaa oo hal khudba aan ka dhigi doonaa haddii la hayra laakiin hadda suuradan maadaama lagu sheegay meesha la dhigay erigan ulul albaab iyo waxyaabaha laga hormariyay markii ulul albaabka la sheegay iyo waxyaabaha laga dib mariyay iyo suuradu intay la eg tahay ee ay ka kooban tahay iyo waxa ay ka hadlayso tiro badnaantiisa waxaad ka garanaysaa in hadalkani uu yahay hadalkii Ilaahay adduunkan abuuray oo basharka abuuray oo aan marna laga maarmi karin suuradu waxay ka kooban tahay 12 aayadood waxa lagu furfurtay nabiga calayhi salaatu wasalaam in loo naadinayo iyadoo la sharfayo oo la ixtiraamayo oo la weyneynayo yaa ayuha nabiy nebinima loogu dhawaaqaya
nebinima loogu dhawaaqay ilaa 13 meelood baa quraanka lagu sheegay iyadoo Allah tabaaraka wa tacaala uu nabiga nebinimo ugu dhawaaqay 6 suuradood oo kamida suuradaha Madiina ku soo degay ayay ku kala jiraan mar kasta oo aad quraanka ku aragtay yaa ayuhan nabiyyu waxa ka dambeeya ama waa wax aqeeda la xiriira ama waa wax khayr iyo aakhiro la xiriira ama waa wax nabinimadiisa iyo rasuulnimadiisa la xiriira ama waa wax ahkaamta sharciga ah la xiriira weeyaan waana nabiga calayhi salaatu wasalaam cida loo naadinay waliba waxa kamida 13 meelood meel si toos ah isaga loo waaninayo oo la leeyahay yaa ayuhan nabiyyu taqillaha ilaahay ka cabso haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo adoomada ilaahay oo dhan laga doortay adoomada ilaahay oo dhan laga doortay hadalka loo jeedinayo oo la leeyahay nabiyow ilaahay ka baq waa dareemaysaa qof mu'mina ilaahay ka baq in la yiraahdo baahida uu qabo waa garanaysa kadib suuradda waxa loo qaybiyay 3 qaybood qaybta koobaad waxa looga hadlay oo Allah tabaaraka wa tacaala uga hadlay waano iyo dardaaran iyo wacdi iyo tawjiihin loo jeedinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadiisa isaga rumaysa ummadda isaga rumaysa aayadda koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo toddobaad iyo 11aad iyo 12aad intaasoo aayadood iyadoo suuraddu ay 12 aayadood tahay ba 8 aayadood oo kamida waxa ku soo arooray oo ku dhex jira waano iyo wacdi iyo tilmaamo iyo tusaalooyin loo jeedinayo iyo dardaaran loo jeedinayo ka bilow nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadda muuminka qaybta labaad ee ku soo aroortay suuradda waa tahdiid iyo goodi iyo cabsi gelin ilaahay uu cabsi gelinayo cid kasta oo amarkiisa diida oo khilaafta oo madax taagta iyo waxa ku dhacay iyadana waxa weeye ilaa 4 aayadood oo kamida oo kuwii aan akhrinay ay kamid yihiin ay ku soo aroortay qaybta saddexaad waxa weeye qaybta ahkaamta qoyska